الوزراء وحافر حدنا عاوة إنام برحداني أن سجون مت وأدولي بأدقو سواب أدو تهاي أنغو أقام هاد علنين الله سبحانه وتعالى كسكو أي أديه أمنيغا إيا قبل كي بنادر أو أسكتو الشيء أديغا أيغو قربايس هستو أي أمنيغي آدوغا ودا شقيين أي أدا أمنيغو بوليس ملتار دي قدال كسو كتميدي إيا أديه أمنيغو بوليسكي نبت سوغيدي إيا شعبكي قبل كبنادر oo runtii u soo istaagay in amnigooda ay ka shaqeystaan noo suuro geliya caawa inaan halkan joogno waa alla mahadiis mudane ra'iisul wasaare habeenada ka mid ah sidoo xiriiriyaha ka dhawaajinayay ayaan halkan ku afurnay annagoo ka jawaabayno baahidii ay dadku ay ka cabanayeen iyo waxyaabihii dadka ka cabanayeen annagoo ka jawaabaynaan raggii hadlay wadaadada iyo masaajidadan iyo culimadiinkii iyo kuwii dugsiyada quraanka odayaashii ayaan halkan kula afurnay waxay aad uga cabanayeen amni darro baahsan oo u suuro geli weysay inay taraawiixda masaajidada ay ku dukadaan guryahooda si amniya inay ku tagaan moobeeladooda inay qaataan intaas bay u suuro gelaynin ayay waxay nala wadaageen cabsi badan oo la kulankayna habeenkaas ay nala kulmayeen xataa ay ka muujinayeen say guryahoodu jiifo lahaayeen waxaan noogu xigtay inaan bishii ramadaan markay dhammaatay maalintii ciidda annagoo farxad iyo rayrayn aan halkan ku wada ciidnay cashrul awaakhir maalmihii ugu dambeeyana ay yidhaahdeen tahajjud iska dhaaf taraawiixe tahajjud kan masaajidada aadnaa runtii waa jeclay caawa inuu halkan yimaado ka hadlo akhyaartii berigaasi cabashadooda noo soo gudbisay oo aan ka jawaabnay waa jeclay inay halkan kelmadooda ka jeediyaan insha Allah waan rajaynayaa inay ka jeedi doonaan mudane ra'iisul wasaare bulshaweynta magaalada Muqdisho waxay ilaahay ka soo uga mahad celinayaan madaxda dawladda oo madaxweynuhu iyo adiga iyo aad ugu horeysiin sidii looga shaqeeyay hagar la'aanteeda amniga looga shaqeeyay iyo soo jeedkiina iyo dhiirigelintiina ayay caawa halkan rabaan inay ku muujiyaan inay ka mahad celiyaan hawshaas ayadoo la qabtay ayay diyaar u yihiin inay dadweynaha soo dhaweeyaan arrintaas ayada ah haddii ay jiri jirtay hoteello in shir lagu qabto iyo tiyaatarka iyo meelo la mid ah caawa barxadii kaaraan xaafadii wajeer iyo Oktoobar iyo marka la isku daro ayay barxadan ayay joogaan ay waliba ayagu ay diyaarsadeen dadweynihii halkan diyaarsana waxaan leenahay waa ku maasantihiin hawsha aad qabateen maamulkii gobolka Banaadir oo isu diyaariyay iyo hay'adihii amniga oo siday halkaan bulshadaani isugu keeni lahaayeen ka shaqeeyay ayaguna waa ku maasan yihiin mar raba inaan kelmadayda sii dheereeyo waxaan rabnaa mudane ra'iisul wasaare adiga ayaa ka jawaabi doona kelmadaha kugu habboon adaa dhiibi doono laakiin waxaan caawa kugu sheegaynaa insha Allah dadweynaha shacabka magaalada Muqdisho gacmahooda ayay amniga wax uga sugeen khawaarijta iyo kooxdii maxay ahayd la dhihi jiray garawaaga ayaga soo qabta qaarkood dagaal ay ku galeen waxaana ugu dambeeyay kuwii maanta miinada iskula qarxi rabay beerta nabadda kuwii soo sheegay shacabka kamid ah marka insha Allah abaalmarinada shacabka iyo madaxweyneyntooda insha Allah adigaan ka sugaynaa waxaan ku leenahay soo dhawaada adiga iyo xubnaha golaha wasiirada iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan fadhido waxaan idin leenahay soo dhawaada kulankayna caawa waa kulan taariikhi ah lagana sheekay doono haddii Ilaahay yiraahdo adigana waa ku mahadsan tahay intii aad ayaan dhawood naga maqneedna markii roobka nagu da'ay
oo dadkii barakiciyay oo dhibaato badan ay ka dhacday ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo annagoo wada soconaan habeenkii guureynaynay goobo badanna aan tagnay alxamdulilaahi mar kastaba shacabka inaan saa ugu dhex jirno oo aan dhibka la qaybsanno ayaan diyaar u nahay annaga haddaan nahay maamulkii gobolka banaadir iyo hay-adihii amnigoo iswataba iyo golihii wasiirada mar kastaba waxaan diyaar u nahay gacmo wada jiray wax ku qaban karaan ilkana wada jiray wax ku gooyaan wada jirkaan isku ognahay heerkii iyo go'aanadii aad ka soo saarteen qayb weyn ayay ka qaadatay amniga magaalada muqdisho caawa oo halkan ku fadhiyo xakamaynta hubka haddii hubka baasanaa oo beledkan joogi lahaa saacan bul iyo bac ayaan maqli lahayn marka bus iyo bacba waxaa u dambaysay xeerkii xakamaynta hubka ayaa u dambaysay waa laga nabad qabaa waana nabad galay waxaan joognaa ra'iisul wasaarow inaan intaan ul yar qaadano aan ilmaha ku xanjafino ilmayn aan ku canaanano ayaan joognaa taasna waxaa keenay xakamaynta hubkaa keentay haddii hubka bannaanka lala marmari lahay xabadaa dhacda iyo liifaa waxbaa la liif garaacad maqli laheedeen marka insha allah waxaan rajaynaynaa buruuf iyo baroon iyo dhashiike iyo cabdibile in gadaal laga tuuri doone baabuurta cad iyo basaska aan raaci doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu